shacabka ku dhaqan magaalada Gabiley ayaa cabasho ka muujiyay lacag cashuura oo lagu kordhiyay biyaha magaaladaas taasi oo ay sheegeen in ay tahay lacag ka baxsan biilashii laga qaadi jiray bisha ee biyaha magaaladaas dadweynahani oo arintaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa wakaaladii biyo waxay ku soo rogtay cashuur waxa la yiraahdaa amba shirkaan shubo amba foosto shubo cashuur baa laga qaaday waanu diidnaa anagu laydhkiiba biyihiiba ka qaalisan ma ogolaan wasiirka Sacad Cali Shirwaan sheegana dadka dhawaanu sheegana anu haddaan haysto dad baan haysanba oo shalay waan bixiyay 200 waxay ka qaadeen 25 dadku ma wada haystaan magaaladu shalay ka wada ooyis marka nin dheregsan nin gaajoonay war uma hayo waxaanu ka cabanaynaa wakaaladda biyo naga iibisay ayaa haddana waxayna tiri cashuur baa la ka doonayaa amaaliyada waxaan leenahay cashuurtan xaqna looguma laha sababtan xaqna loogu lahay waxaan annagana laga qaaday lacag biyahan ku iibsanay cashuurta waxa lagu leeyahay lacagtana laga qaaday wakaaladda biyaha lagu leeyahay waxa lagu leeyahay aniga 110 shilin baa laga rabay marka 5% cashuur laga doonayaa lagu anu biyo laga iibi dawladda biyo iibis biyaha naga iibisay ma hadda in haddana cashuur kala la keena xukuumadda waxaan ugu baaqayaa inay wax ka qabato iyadoo dawladdu maamulasa oo cashuurtii wax walba iyadoo qaadanaysa ayaa haddana waxay tiri 5% waxaan ku kordhinay cashuurta biyaha la qaadayo oo lagu daray lacagtii taasi aad iyo aad baan uga caawinaanahay shacabka gobolka Gabiley oo leenahay dawladdu masaakiinta dhan waxa weegto dhinaca kale maareeyaha biyaha magaalada Gabiley Maxamuud Xuseen Nuur oo xafiiskiisa aanu ku booqanay isla markaasina dhinaciisa aanu wax ka weydiinay ayaa sheegay in cashuurtani ay tahay mid hore u jirtay isla markaasina waqtigan la dhaqan galiyay cashuurtani waxa mid soo jirtay hasaahate dhaqan galinteeda ayuun baan hadal bilownay wakaaladdan waxa soo martay dhowr maamul soo martay waxa ku horeeyay private baa ku horeeyay waxa BPO ay marka hore dawladdu waa la wareejiyay dawladda hoose kala wareegtay waqtigii BB-ga ahayd shacabku gacanta ku hayay qolada shirkadii Samsam cashuurtan waxa mid la qaaday waana wax hor loo dhaqan galiyay oo waajib ah marka in yaro dhexe haddana maadaama wasaaradda horumarinta biyo gacanta ku hayso maamulka wakaaladda biyaha oo ay hoos tagto waajib ay noqotay in la fuliyo cashuurta oo la qaado waana sales tax weeye cashuurta iibka la yiraahdo waddanka oo dhan waa lagu qaadaa wakaalada oo dhan way qaadaan wakaalada biyo waana wax sharci ah oo ay tahay qofka muwaadinka inuu bixiyo taas weeye tamaanta loo qaato wax cusub waxa la qaadaa waa 5% waxay ku xidhan tahay macmiilku waxa uu isticmaalo maareeyaha biyaha magaalada Gabiley Maxamuud Xuseen Nuur mar codka bariga Afrika wax ka weydiiyay biyo yaraan muddooyinkii ugu dambeysay magaalada Gabiley ka jirtay ayaa waxa uu ku jawaabay waxa weeyaan horta way jirtaa oo cilad la waayay maayimshinku cilad waa birwey cilad buu yeelanayaa hase ahaatee intii wasaaraddu gacanta ku haysay runtii biyaha magaaladu aad bay u fiican si kastaba ha ahaatee cashuurahani lagu kordhiyay biyaha magaalada Gabiley ayaa imanaya waqti lagu jiro xilli jiilaal isla markaasina ay biyo yaraan baan ka jirto magaalada Gabiley iyo deegaanada hoos yimaada Sikriye Nuux Ibrahim codka bariga Afrika gobolka Gabiley